السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هدي الله يدهده وحينو إن بلابن دونا إن مؤتمر كيني إن سنوي جاها إن وقت كان حاجة قوكلا إن كل متشرني إن مركو راحت إلهي بمحل له ووقت يجور رئيسي مساجد كان عصبة أبو هريرة إنه كلن عين كاسية إنه كوكب صنّا إن تاسنا waxaweyaan inaynu ilaahay harta ugu mahadnaqno oo inoo hawl yareeyay inay saldhig u masjidkani inoo noqdo ujeedadii iyo himilooyinkii iyo tacabkii aynu soo galnay iyo inta dambaba inuu ilaahay inoo fududeeyo insha Allah waxaynu rajaynaynaa inuu masjidkani noqdo saldhig waxbarasho aqooneed in tusaaleyn iyo faham wanaagsan oo diintan islaamka ee saxiixa iyadoo la taaba raacayo sunnihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam yar iyo weynba aynu majaalka dhalinyarada haweenka ragga odayaasha cid kastaba aynu u furno aqoontu da'ma laha maalinba maalkii qofku joogo waxbuu kororsan karayaa waqti badan runtii ma doonayo inaan qaato waayo waxa weeyaan cishaay baa iska soo dhow muxaadaradana saacad ayaa loogu talagalay taasi waxa weeyaan ta masjidka ku saabsan kulley masjidka iyo hawlihiisana kulley mar kalaa laga hadli doonaa iyo siday wax u socdaan waxyaalaha laynooga baahan yahay hawshu halku ay marayso waxaan kaloon idin xusuusinayaa in buildingku sida aragteenba waa building weyn markaynu kulanadan qabsano dadyo badan baa imanaya caruur baa imanaysa dumarkii baa imanaya inaynu nidaamka ilaalino waa muhiim weeyaan waayo waxa weeyaan nidaam la'aantii waxba ma soconayaan halka corridorska ama hallska in la ilaaliyo albaabada marka la soo galayo iminka albaabkan rag oo kale socodka ku badan dhalinyaro badan oo iminka istaagaysa waan arkay waxa weeyaan halkaas waa fire route weeyaan marka waxyaalaha safety-gu waa inay harta inaga qudhideenaba aynu jadwalkeena ku darsano waa in case ay wax dhacaanba waxa weeyaan exitesku waa inay had iyo goor free of movement la helo ma og tahay taasi waa mid xagga badbaadinayna iyo si barnaamijku si habsamiya inoogu dhaco waa in qof kasto meesha imanayaaba ay waxa weeyaan maskaxdiisa ay ka guuxayso hooyooyinka iyo waalidiinta qudhiyoodana inay caruurta ay xusuusiyaan taa waxaan kaloon ku darayaa buildingka qudhidiisu in la ilaaliyo moogtay buildingkoona waxa weeyaan intii mikaaban soo galnay waxa weeyaan caruur baa jirta dadka waxyaalo ka sii dhacay way jiraan laakiin haddana waxa weeyaan inaynu buildingka ilaashano oo waxa weeyaan meeshan waxa weeyaan waa meel aynu mustaqbalkeeni iyo doonayno ujeedooyin badan inaynu ku qabsano marka qof kasto inaga mid ah qudhideeda waa inay taasi qudhideedu ay ka timaado oo aynu meeshii waxa weeyaan waa meel aynu wada leenahay gidigan qof kastaaba uu fahamsanaado isagu waxa weeyaan waxyeelka meeshani inay ina wada dhaawacayso ta saddexaad waxa weeyaan muqtamarkan waqti badan baa galay culimo meelo fog ka timid ayaa inala joogta waxaynu ugu talagalnay inaynu aqoonta islaamka aynu ka wada faa'iidaysano dhowr kaa cisho waxa muhiima inuu qof kastoo halkan imanaya usoo diyaar garoobo in uu at least in yar oo ma ogtay waxa weeyaan noloshiisa islaamka wax ka bedeli karta uu ka faa'iidaysto maalintuu shirkani dhammaado taasi waa inaynu aroor kasta ku soo kalahno habeen kastana markaynu ku dhammaysano uu qof kasta niyadda ku hayo waayo waxa weeyaan ilaahay waqtigeena iyo saacadahaasi waxa weeyaan aynu cibaadaysanayno waa cibaado weyn aqoon baynu siyaadsanayna waxba aynu kala kordhisanaynaa themeka ama waxa weeyaan halkudhiga waxa weeyaan shirkani waxa weeyaan qoyska islaamka iyo qurbaha mujtamaca islaamka waxa usal ah qoyska islaamkuna unugyo ayuu ka kooban yahay unugyadaasi ayaa bulshadii waxa weeyaan iyo mujtamacii dhaliya marka waxa weeyaan lagama yaabo inaynu moogtay dawladda islaamka oo gurguranaysa aynu aragno laakiin waxa weeyaan dawladda islaamku waxay ka imanaysaa ama islaamnimadu qofku isaga ayay harta waxa weeyaan aasaaskii u ah
dabadeedna reerkiisa iyo caruurtiisa ayaa sidaas ku imanaysa markuu guri kasto waxa weeyaan bulshada islaamku isagu kaalintiisa ka soo baxo mujtamaca intiisa dambana way iska iman karaysaa ma doonayo inaan hadalkayga ku dheeraado muxaadarada ugu horeysa kulankeenani sheekh Mustafa Ismaaciil Haruun ayaa insha Allah inoo geli doona Mustafa waa qof aad wada taqaanaan Norway buu ku nool yahay dacwadana in badan buu ku soo jiray intaasan taariifkiisa ku soo koobaya muxaadarada cinwaankeegu waxa weeyaan furaha qoyska wanaagsan iyo waxa weeyaan asbaabaha ma ogtahay u saldhiga in la helo qoys islaama oo suuban oo sidii rasuulku kaleey salaatu wasalaam waxa weeyaan isagu muujiyay iyo asxaabtiisiiba laga arkay inaguna aynu ku tusaale qaadano sidii loo heli lahaa inta wixii ka dambeeya waxaan uga baxayaa Sheikh Mustafa falyatafaddal mashkuran jazakumullahu khairan assalamu alaykum بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد أخوتي في العقيدة أولا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ثانيا وحانم هدنقيا بعد الله سبحانه وتعالى ولا لدى ديارية كلام كان iyo markaska reer Abu Hurayra maamul iyo shacabkiiba marka labaad hadii aan dariskan bilaabo dariska leeydhiibay waxa la yiraahdaa miftaax as-saada zawjiyya furaha badhaadhaha qoyska ama sareedada qoyska muslimka ah inuu liibaano oo uu badhaadho ku noolaado ama sareedo ku noolaado furaha uu u baahan yahay asal waxaa islaamka aynu garanaynaa inuu yahay nidaamkii alla soo dejiyo lagu dhaqmo sidii alla uu doortay dadku inay u dhaqmaan rag iyo dumar qoys mid yar iyo mid weyn in loo dhaqmo laakiin waxaan isku dayaynaa bal بعض الأشياء إن تلمامنا وحين تلمامي كرنا الزواج أما قوركو وشركة بين الزوجين أما وأنه لا يوداق يعني لوقف ومركي هراء الجنبي كلاها دبتنا يسقر للنقضين إن الله شيء يسقدر صداعا وحيدا هذا الشركة دا سواها أصل ورأس مال كده كواد بينه هو الحب shirkadaasi raasamaalka kaliya ay leedahay ee asalka ka ah waa kalgacal ilaahina subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku tilmaamaya fi surati al-a'raf huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ama fi surati ar-rum wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إلهي وحت الماما يا سبحانه وتعالى إلهي آيات كيس ووين الغقرت وحكم ده أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
إن ورقة أما آدم عليه السلام لغا soo bilaabo uu ka abuuray ama uu yeelay lamaanaha waxa la idinku yeelay baa la yidhi litaskunuu ilayha ina ku xasishaan asalka guriga marka waxa asal ka ah in loo dhisto lilitminaani waasukuuni walraaxa qofku inuu dego oo xasilo oo meel nolosha dhibteeda kale uu ku soo ilaabo ay noqoto meelu nashaad iyo firfircooni ka qaado marka uu ka baxaya inay noqoto ilaahina wuxuu tilmaamaya wajacala baynakum mawaddatan wa raxma dhexdiinana waxa alla yeelay subxaana wa tacaala mawadda kalgacal iyo naxariis baa la yidhi kalgacal iyo naxariis waxaynu markaa isku dayaynaa sida qur-aanku tilmaamayo xidhiidhkaasi guriga ka dhaxeeya ama ninka iyo haweenta uu qabo ka dhaxeeya waa xidhiidh xeel dheer oo waxyaabo badan tilmaamaya ilaa xad ilaahay ku tilmaamaya hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun hubaa u tihiin idinku haweenkaan qabtaan haweenaydaaduna hubay kuu tahay dharku qofka bini aadamkaahi 3 shay buu u qaataa أولا وحو قاطع عاديات الحياة إنو اسكيغا عليو كليل قبو واحد شراء إنو اسكيغا ربو ثانيا وحو قاطع لسطر عورتي سينو كو أسطرته ثالثا وحو قاطع للزينة وللتزين إنو اسقرحيو نينكا يقبردو انتبا ويسوي سدح ذا الشيبة نينكا يقبردو ويسوي ومال وقفكو hadduu nin iyo hadduu gabadh yahayba uu ku dago ku xasilo waa meel uu cawradiisa iyo sirtiisa iyo waxa u qarsoon oo dhan uu ku kaydsado oo uu dhigto waa meel uu quruxdiisa ku muujiyo idan qofku wuxuu qurxoon yahay markuu yahay qof reer leh oo degan ayuu nolosha quruxdeedii iyo dhadhankeedii haya saadaradeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa ragga iyo dumarku inay libaas isu yihiin dhar inay isu yihiin gurigaasi sidaa ilaahay qur-aankiisa ku sifeeyey waa kalaamu rabbi alcaalamiin gurigaa ilaahay sidaa ku sifeeyey ee ku tilmaamay in hullaysu yahay ama in lagu xasilayo ama in mawadda iyo raxma dhexdooda ay taallo ayaa waxaan isku dayaynaa gurigaasi inuu sii jiro waxyaabaha keeni kara ee sacaadada iyo badhaadhaha ka muujin kara waxaynu leenahay dhowr shay baa jira dariskan intiisa badan waxaan isku dayaa inaanan ka hadal xuquuq iyo waajibaadka iyo baabkaasi laakiin waxaan ugu horraysiinayaa ka hadlayaa fannu tacaamul qaabka wada dhaqanku maadaama asaaskiisuba uu xub iyo kalgacal yahay waa inuu ku salaysnaadaa kalgacalkaasi iyo sidii loo xoojin lahaa jacaylkaasi ama kalgacalka ama isu hilowgaasi inuu beermo oo koro oo kobco sacaadadu markaa waxay ku xidhan tahay in laga ilaaliyo munaqasaadkiisa ama waxyaabaha waxyeelaya in la taqliiliyo kalgacalkuna waa wax la beero sideedaba xubbiga waxay yidhaahdaan kalgacalku waa tilka alxaala alatii تصبح فيها سعادة شخص آخر ضرورية لك وحالات بيلين قفك لليبانتي أدقى ضروري كون نقطات كفر حضوك قفك كالقعل كوها سيتشعشهاي وحالات شعشها وانا قردن وحالات قفك للربطه ليبانتي سو أدقى يكون فرح قلينيس وحان ربا مركا لبردن إنان كسويره دان إنان كسويره نينكا دان كلا إنان كسويره قبرده marka aan taa tilmaamayo awalan kalgacalka iyo xubbiga ninka iyo gabadha u dhaxeeya inta badan dadku marka jacayl iyo kalgacal iyo muxibbo iyo cishq iyo warkaa marka la sheego dadka inta badan waxaa ku soo degdega caqligooda mas'alat aljamaal quruxda iyo dhismaha qofka iyo hay-adiisa nacam quruxda iyo cadamada iyo weynida iyo waxaasi waa fitrada insaanka bay ka mid yihiin sideeday fitriyan bay ay maxbuub yihiin
waayo ilaahay ba qur-aanka markuu inoo manay nacam quruxda iyo cadamada iyo weynida iyo waxaasi waa fitrada insaanka bay ka mid yihiin sideeday fitriyan bay ay maxbuub yihiin waayo ilaahay ba qur-aanka markuu inoo manno sheeganayo ee la sheegay xoolo in laydina siiyey oo ilaahay inoo abuuray oo aynu wax ku raranayno oo ku guurayno ayaa la yidhi walakum fiiha jamaalun xiina turiixuun wa xiina tasraxuun qurux baa idinku sugan xoolu markay sii dareerayaan iyo markay soo dareerayaan baa layidhi yacni jamaalku waa shay fitrada asalka qofka bini aadamkaa ka mid ah laakiin gurigu jamaalkaasi ku saabsan hay-ada iyo bidhaanta waxaa ka muhiimsan jamaalu lafcaal waxa la yidhaahdo quruxda dhaqankaa ka muhiimsan quruxda dhaqanku ama jamaal lafcaal ayaa sameeya kalgacalka joogtada ah waayo jamaalka jasadigee sare ee muuqda waxyaabaha ugu horeeya ee lumaabuu ka mid yahay marka muddo la wada joogo da-baa iska socota saa daraaddeed waa tarahulaat baaba waa muuqaalkii hore isbeddel baa markiiba ku yimaada laakiin waxaa loo baahan yahay inuu gurigu ku dhisnaadee kalgacalkiisu ku salaysan yahin waxa weye ka asala jamaal alafcaal sida awgeed reerka saciidka ahi bay yidhaahdaan waa reerka shuclat alxubbi aanay marna gamaarin shamaca kalgacalku waa reerka aan la daminin bay yidhahdeen ee aanu damin si kale marka loo tilmaamo waxyaabaha dadka isku xidhee caatifada ahi waa reerka aanay marnaba naaqusin laakiin ma aha shaygaas shay sida wajbat alghadaa inta mar la ysu dhigo la dhergoosaa la ahaado walidalik waxay yidhahdaan xubbiga iyo kalgacalku waxaa laga yaabaa caawa inaan ku hadlayo luqo ay ku fiican tahay intii guur ku jirta un inay dhegaysato amase inta haabhaabanaysa ag joogta walidalik maadaama sacaada zawjiya aan ka warramayo waa runtii luqo gaara waxaa la yidhahdaa kalgacalka waxaa loo yaqaano sidiisaba wuxuu leeyahay funuun kalgacalku ama jacaylku wuxuu leeyahay funuun lagu taqdiyeeyo ama lagu beero qaab loo koriyo loo kobciyo mithaal aan axaadiista nebiga iyo ku noqono sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo qur-aanka waxaa laga yaabaa inay inta badan dadka ay agtooda qariib ku tahay iyadoo jacayl nin iyo gabadh dhexdii jooga laga warramayo in haddana qur-aan iyo xadiis aanu kutubulfan kama warramayo laakiin waxa aan tilmaamayo o dhami waa waxaan daliil uga keeni doono min kitaab illaahi subxaanahu wa tacaala iyo min sunnati nabiyi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ama dhaqankii nebiga iyo saxaabada iyo dadkii wanaagsana kalgacalku wax beerma horta inuu yahay nebi maxamed baa wuxuu tilmaamayaa ashyaa dadka muslimiintii hadday sameeyaan isjacaylkooda uu badanayo مثلا النبي يقول عليه صلوات الله وسلامه عليه تهادوا تحابوا حديث صحيحة هديات كيساسية أو حيث هدية واسجعلانيسا يعني إن هدية الله يساسية وحي كم تهي وحيارها بيرها دتكو إن الرالي اسكن نغضان وحريد في عن وكالقعل ودحمره وحكم إذا النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه حديث كيسنا صحيح مسلم كيالي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا جنada gali maysaan buu nabigu yidhi ilaa iyo iimaan laydinka helo mooyaane iimaanna laydinka heli maayo ilaa iyo maxay isjeclaataan mooyaane haddana nebigu wuxuu tilmaamay kalgacalkaasi muslimiinta dhexdooda gelaya siduu u kori lahaa awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum ma idin tusiyaa buu nebigu leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh acmaal iyo afcaal haddaad samaysaan aa isjeclaanaysaan wuxuu nebigu ku yidhi afshu salaama baynakum salaanta badiya salaanta waa kalaamka ayibkii halku ka bilaabmo qofka walaalkaayo markuu kaa soo horbaxo assalaamu calaykum inaad ku tidhaahdo waad u ducaynaysaa qofka intuu kuu yimi assalaamu calaykum macnaheedu waxa weeyaan rabbi ha ku dhowro qofka intuu kaa soo horbaxay kugu bilaabaya hadalka ilaahay baan ka baryayaa inuu ku ilaaliyo waa qof kalgacal uu kuu wado
hadduu kugu celceliyo markaas si kastoo aad u cadhaysnayd hadduu imika assalaamu calaykum ku yidhaahdo haddana hadhow markaas ka soo horbaxda assalaamu calaykum ku yidhaahdo 2-3 jeer haddaad afka buurto marka dambe waad iska nafisaysaa wacalaykum assalaam baad leedahay yani waa qof muslim oo markaa soo horbaxay ilaahay kuu baryaya rabu samaawaati walardi qof kuu weydiinaya inuu ilaahay ku dhowro kama adkaysan karaysid marka dambe yani nebi maxamed wuxuu tilmaamaya salawaatu ullahi wasalaamu calayhi marka inuu xubbigu wax la beeri kara yahay dadku inay isjeclaadaan wax la beeri karo oo kalgacalku beerma inuu yahay bal quraanka ilaahay wuxuu leeyahay idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adaawa kaannahu waliyyun hamiim ba ilaahay marka xuma lagu sameeyo wanaag kaga jawaab ba ilaahay subhanahu wa ta'ala oo maxaa dhacaya fa idha alladhi baynaka wa baynahu adaawa ki colaadu idin dhaxaysay wuxuu noqonayaa buu ilaahay leeyahay kaannahu waliyyun hamiim ay sadiiq qariib oo ku jecel ayuu soo baxaya qofkii dhibta kuu geystay ee ka filayay inaad ka aargudato ama aad ka aargoosato ama aad على الأقل فإن عاقبتم بمثل inuu sugayay intii uu ku geystay ilaa على الأقل inaad u geysato haddaad weliba wanaag u gasho waxay keensanaysaa qofka agtiisa inaad dib lagugu soo hadal qaadin daa inuu isagu wax ku yidhaahdee uu yidhaha wararkaasi abaal buu igu leeyay baran waxa ku sameeyo haddana wanaaggaasuu ii galay sida daraaddeed maxaan masaa'ilkan u tilmaamaya waxa weeyaan xubbiga fitriga ee hore waa laga yaabaa inan iyo inan kastoo isguursanaya markay isguursayeen kalgacal fitriga dhex mara waa suurtagal laakiin inuu kaasi joogto ahaado oo gurigan isjacaylkaasi uu ku noolaado oo hadday dadku gaboobaan uu la gaboobo oo sidii jacaylku u jooga wuxuu u baahan yahay afcaal iyo dhaqan abuuraya inuu kalgacalkaasi joogo waa taa masalada u baahan markaasi in wax la iska weydiiyo oo la tilmaamo waa taa masalada aan isku dayaya markaa wixii alla ka fudaydiyo subxaanahu wa tacaala inaan soo naqliyo ama se soo guuriyo idan kalgacalka qoyska iyo gurigu waa matlab ama waa arrin u baahan sanaaca mushtarika bayna azawjayn waa shay u baahan ninka iyo gabadhuba inay wada beeraan waxaan isku dayaya markaa kalimaad alxub والعاطفة الجياشة أي كم وقته إن انكسر نقليه من كلام علماء سلف قرى إن انكسر نقليه علماء دي هراء مسلمين تا إيه وحيابا يساتن كيرادين أولا هاي علماء دو يرادان كالقعلك كو أنين إيه قبضو خلقانو قبضو هوينيدو إنيني كذا شعلاته وجعل دبا جعلاتا ومن الدين وانا الصفة ننكنا وجعلي هدو قبديسا كالقعل كو هايستو إيا جعل وكدريميو ووحو ننكو جعليها تاوحا الدليلة إلهي القرآن كمركو السفين يي دمرك الجنة جوغا وأي كمديهين دمرك مؤمنات كاهايا دوني دا إيمان كل انتي أهلو جنان نغضا كمدا dumarkaasi jannada jooga ilaahay markuu sifeeyay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku sifeeyay inay yiin kuwa ragooda jecel inna anshaanahunna inshaan faj'alnahunna abkaran uruban atraba ba ilaahay waxa weeyaan ba ilaahay uruban haweenka jannadu gabadha muslimadii inay ahlu janna la dhaqan noqotaa waxa diintu ku yeedhayso أنا أهل الجنة ودقا في عن جنة وحي الله ودقا ونكسن سدرادات قبضة مسلمات الدنيا تشوكتانا إن الدقا كانوا كلايا لتا وشيء مطلوب له بهاي ولولا هدي آنو أهين ننكو متكفر حيا إن هوانتي سوشع شيء هدانو أهين إلهي وقماش يقال نمعادا وجنة كوها ليانيت يعني ميا الله لها جنة نمعوين كذا نمعوين هو يسوي حكمي ده لولا أنا هين من فطرتي إنه كفر حيا كبرار يو كوكلا بدن يو هداي هوانتي سكم مغطر دقن أما هذا أما صعد أما موقال أما وح سوتشي تو موتشينا يين يتعشى هداي كم مغطر سيدا وجد بل كتب التفسير عن تلمامه كلمة عربا أو عربا لبدا قراءة كادون تباخري واسكمي ده
waxay dhahdaan mufasiriintu 5 qowl bay ka leeyihiin buu leeyahay ibn al-qayyim fi zaadi al-masirkiisa qowlka koowaad ay culimadu ku fasireen waxa kamid ah al-urub waxa weeyaan buu leeyahay annahunna al-mutahabbibat ila azwajihinna wasida wa awfi ibn abbas ka warinayo waana qowlka mujahid laga soo naqlinayo sa'id ibn jubayr ibn qutayba imam az-zajjaj culimada soo dhabay ku tagtay wuxuu leeyahay curuban ta haweenka jannada lagu sheegay waxa weeye annahunna almutahabbibat ila azwajihinna wa sharxi doona wa kuwa isjeclaysiinaya ragooda qowlka labaad wuxuu oranayaa curubka ay ku fasirayaan annahunna alawashiqu wa kuwa iyaga cishqiga hayaba kii hore muxuu lahaa waa kuwa isjeclaysiinaya ninkeeda kana wuxuu leeyahay iyada lafteeda ayaa cishqiga haya وانا سيده ابن عباس علي بن ابي طلحه وكورينيو وانا قولك وكنت جاي حسن يا قتاده يا مقاتل يا مبرد يا مجاهد لفتيسو قول بعده ولي قولك صدحاد عربا وحي كنت المامان الحسنه التبعل وقبض الصدف في عن ولا دقنت نينكيده اسنا ابو صالح يا ابن عباس كورينيو ابن عباس صدح قول با لغا ورينيو marka وانا قولك كنت جاي ابو عبيده قولك أفراد مسألة ترى كنت الماما وحوي يعني عكرمة لقوريه الغنيجات الغنجة جارية غنجة مركا لها غنجكو والتكسر والتدلل ويسشبين وحيد هذا وحكم ده وصائلك حبك سكر مركا الله الماما ابن زيد قول كيسا قدام بيوحلي الحسنة الكلام أحد المفسرين مثلا ندانا قواشي سسوغوريو ابن عاشور في تفسيره وحورنا يا عرب وجمع عروب بفتح العين ويقال عربة بفتح فكسر فيجمع على عربات كذلك وهو اسم خاص بالمرأة وقد اختلفت أقوال أهل اللغة في تفسيره وأحسن ما يجمعها أن العروب كلمة تنوحلي وكلمة دمر كوكارة ولغو صفاية أهل العلم وما أهل اللغو مركا يفسر أيانا معنى يالك لقد سميت المامان بولي لكن وحان شيغي يا بولي وحكو المياه هوين كان جنة صفة لغو شيغي عروب قبرنا لغو صفين يا معنى هدو حويان بولي المرأة المتحببة إلى الرجل وقبرنا ننكي هذا استعلي سينيسا أو التي لها كيفية المتحببة بولي أما وقبرنا dhaqankeedu uu ka muuqdo inay rabto ninkeedu inuu jeclaado wa in lam taqsid at-tahabbub bulay oo muxuu ku tilmaamaya wuxuu leeyahay بأن تكثر الضحك بمرأة الرجل أو المزاح أو اللهو أو الخضوع في القول أو اللفظ في الكلام بدون علة أو التغزل في الرجل والمصاهلة في مجالسته والتدلل وإظهار معاكسة أميال الرجل لعبا لا جدا وإظهار أذاه waxaa ku fasiraya sheekha reeyoleeyay carruubka waxaa la yidhahdaa gabadha ninkeeda isjeclaysiinaysa ama uu ka muuqdo dhaqan muujinaya inuu ninka kane jeclaado ha noqoto buu leeyahay dhaqankaasi mid ku saabsan qosol ama kaftan ama hadalkoo la jajabiyo ama wax tagazul tilmaamaya yacni wuxuu tilmaamayaa un kayfiya wuxuu kala soo guuriyo uu yidhi waa waxyaabaha marka ay mas'aladu xaaraanta tay quraanku u diiday yani mas'alo ogsoonow xalaasha iyo xaaraantu gabadha ajnabiga inay hadalka jajabiso ama ay ka muuqato inay ninka doonayso ama waxaas oo dhan waa xaraan quraankuna si cad ay nusuustu tilmaamaysaa cagsigu waa xalaal bay culimadu leeyihiin marka cagsigu waa matluub yani nabigu halku ka tilmaamay ninku hadduu gabadhiisa u tagana ajar baa loo qorayaa waxay yidhahdeen inta shahwadeeda gudana ajar haddaa la tagtaan buu nabigu yihi maxay xaaraanta haddaa lagtaan intaa miyaan dambi laydin qoreen walidalik ay ibnu caashuur wuxuu leeyahay waa sida ilaahay baa leeyahay falaa takhdacna bilqawli fayatmaca alladii fii qalbihi marad waxaa la yidhi hadalka ha jejebinina oo yuu idin dalbin kii qalbigiisu bukay laakiin markay joogto labadii xalaasha ahaa hadalka waa inay jajabisaa
si uu u dalbo kii xalaasha u ahaa waxay mamnuuc tahay maxay khaarija ziwaaj inay warka kan la timaado ama se ilaahay wuxuu leeyahy walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukhfiina min ziinatina cagaa iyay dhulka ku tumin haweentu markay halkaa marayso si loo maqlo maxay jinjimaheediiyo waxay sidato hadday gurigeeda joogto odaygeeda la joogo cagaya meeshay jajabin kartaba ha jajabiso si odaygeeda ay u soo jeedin karto yacni waxa aynu leenahay khaarijka mamnuuc buu ku yahay wuxuu noqonayaa maxay fii beytiha inuu noqdo joogto odaygeeda la joogo cagaya meeshay jajabin kartaba ha jajabiso si odaygeeda ay u soo jeedin karto yacni waxa aynu leenahay khaarijka mamnuuc buu ku yahay wuxuu noqonayaa maxay fii beytiha inuu noqdo shay diin ahaan ku bannaan bal acmaasha ay tilmaamayaan cikrima wuxuu kaloo ku tilmaamaya alcaruub ay almaliqa buu leeyahy maliqu waa kelmaddan idhaa hebel waa mutamaliqa halka ka timi maliqu waa qof hadalka jajabiyo oo qofka isu dhuldhigo oo duceeyo oo intii loo baahnaa in ka badan bay idhahdeen ama markay joogto bay leeyihin beytka ninka iyo gabadhiisa haweeneedu inay dhul isdhigto oo ismiskiiniso oo ducayso oo barido oo odaygeedii hiya almaliqa buu leeyahy hiya alcaruub ayuu ku fasiraya bale culamada qaarkood ka fog baabay ku fasireen oo waxay idhaahdaan caruubnimadu hiya alhalima bay idhaahdaan halimaduna waa hayajaanu shahwat الnikaax min almar'a wاlrajul labadaba soo dhaaf imaam الbukhaari marka uu tafsiirayo fi xadiiث الbukhaari fi tafsir اlcariba ay alghanij buu ku tilmaamay wاlghaniju fi اljaariya waxay dhaha takasur watadallul waa isjabin iyo isdhuldhig imaam الghazaliyi fi ixyaa'ihi wuxuu leeyahy hiya alcaashiqaة lizawjiha almushtahiyaة lilwaqaaci bihi wa bihi tatimu ladda sidaa ogeed waxaynu leenahay haweenayda muslimkaa guriga kani si uu u dhisnaan karo wuxuu u baahan yahay gurigeennu inuu u ekaado gurigii jannada ka jiray gurigu inuu u ekaado maxay gurigii jannada ka jiray guriga jannada ka jira haweenta joogtaa haddii la yidhi waa curuban atraaba tani inta ay matali karta waa inay matashaa wax ceeba markaa ma aha marnaba waxa ilaahay xuralcaynta ku sifeeyey inay gabadha muslimadii ku sifowdo ceeb maaha ma aha ceeb markaynu leenahay waxaan u jeednaa ma aha wax laga khajilo wax laga khajilo ma aha alxayaa qayb ka midi waa madmuum qayb ka midina waa mamduux waxa sharcigu baneeyey in laga xishooda waa madmuum bay leeyihin kuma jirto maxbuubaadka waxa la jeceliya kuma jirto bale qur-aanku markuu tilmaamayay ragga iyo haweenka waxaa la yidhi uxila lakum leylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum huna libaasun lakum wa antum libaasun lahuna wa min aqwaali lmufasiriina fi rafath waxay yidhahdaan aslu luga rafathka waxaa lagu tilmaamaa qofka oo ku dhawaaqa ifsaax bima yukna canhu aw qawl lfuxshi bay yidhahdaan hadalka markuu qofku caadigu meel ka hadlaya uu ka khajilo ama si aanu ku dhiiranin inuu yidhaahdo guriga se waa laysu mar dhigtaaba wax laga khajila ma yaalaan sida daraaddeed kelimatu rafath ayay culimmadu leeyihin baa loo adeegsaday jimaaca oo muqadamaadkiisa looga jeedo idan meesha tan waxaan tilmaamaya waxa weeyaan alustaada maryam inaajim baa waxay leedahay haweentu waa kutla muta'ajija min alcawaatif bay tiri sideedaba waa kuus kalgacala oo karaya bay tidhi laakiin gefku wuxuu ka yimaadaa bay leedahay dareenka xishoodka ee la siiyey qaldan ee ay kala garan weyday buu leedahay wixii u baahnaa in laga xishoodo iyo waxaan u baahnayn in laga xishoodo ama si kale haddaan u tilmaamo bay leedahay waxa loo qaatay in qofka waqaarkiisa iyo simadiisa iyo shakhsiyadiisa iyo deganaantiisa ay wax u dhibayso cilaaqada zawjiga waxa ku salaysani ee baabkani waxba uma dhimaan bal waxay dhahdaan gabadh badawiyadoo reer miyiya ayaa qamiis cas iyo waxbay qaadato xinxinaysatay dabeetana tusbax bay qaadatay baa la yidhi meel bay fadhiisatay way wardiday qolaa waxay ku yidhaahdeen ma abcada hada min hada
labadana oo dad kala foga inaad cusbarato mariya xidhxidhato iska dhalaaliso haddana aad wardi meel la fadhiisataa waa laba kala fog bay ku yidhaahdeen markaasaa waxay tidhi bay yidhaahdeen beyt ay leedahay lilaahi minii jaanibun laa udayicuhu walilahwi minii waalkhalaacatu jaanibu waxay tidhi ilaahay dhan buu igu leeyahay aanan rabin inaan dayaco dheeldheelkiiyo maradhigadka ninkayga xaggiisana qayb bay igu leedahay iyana aan la rabin inaan dayaco bay leedahay yani labadaba waa bannaan yihiin tanna waa baab kaloo ilaahay baneeyey markay gurigayga joogo kanina waxa weeyaan bay leedahay wardigii aan u haynayey oo aan baryayey walidalik ayaa ibn casaakir baa wuxuu soo naqliyaa bilaal ibn abi barda ibn abi muusa alashcari waa taabicii abu muusa alashcari baa awowgiisa saxaabigii la odhan jiray saxaabada nebiga ka tirsanaa isna amiiru basra ayuu ahaan jiray ayaa qolo julasadiisa oo la fadhidabu wuxuu ku yidhi ma alcaruubu min annisaa war qur-aanku waa kan curuban atraaban sheegay haweenka waa tee tacaruubka ahay qaale famaaju dadkii waa buuqbuuqeen markii ninkii ugu weynaabe amiirka magaaladan uu kelmadda tan weydiiyey waa la buuqbuuqay dabeetana waxaa soo galay baa la yidhi isxaaq ibnu cabdallah ibnu alxaarith ibnu nofal ibnu alxaarith ibnu cabdilmuطalib ibnu alhishaam ayaa soo galay in haashimiya nebi maxamed ay isku abtirsan yihiin calayhi salaatu wasalaam oo isna culamadii wakhtigaa joogtaya dadkii markuu ninkan u soo galay buu wuxuu yidhi qad jaa'akum man yukhbirukum fasaluuh waar hadduu yimaadaba nin ka warramaya ee isaga weydiiya buu ku yidhi haddaa idinku ka warwareegteen oo sheegi weydeen kan aalu beytkaabaa ka warramaya ee weydiiya buu ku yidhi waa maxay baa la yidhi wuxuu yidhi alkhafira almutabadila lizawjiha waa ta xishoodka badan markay meesha kala joogto ninkeeda markay joogtana waa ta u furfurana u mardhigata isu dhuldhigta dabeetana gabay buu tiriyey uu leeyahay waa ta la yidhi yucribna cinda bucuulihina idaa khalow waidaa hum kharajuu fahuna khifaaru markay raggooda la joogaanna waa curubka kuwa lagu tilmaamay xagga dabadda markay u baxaanna waa khifaar yani alxayaa shadiid baa la ydhaha khufriga waa kuwo aada u xishood badan sidaa awgeed waxaynu tilmaamaynaa gurigu si uu u dhisnaado oo guri saciida uu u noqdo waa inuu noqdaa guri kalgacalkiisa uu joogto yahay kama warramayno cishiradii ahayd bilmacruuf in lagu dhaqmayo baabkaasi maaha baabkaynu tilmaamayna si awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isna wuxuu tilmaamaya xadiidka jaamicu saqiirka ku qoran saxiixa uu albaani ku tilmaamayo alaa ukhbirukum binisaa'ikum min ahli ljanna ma idin sheegaa buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh haweenkiina ahlu jannada ah sifada koowaad uu nebigu siiyey wuxuu ku sheegay alwaluud alca'uud calaa zawjiha alatii idaa aadat aw uudiyat jaءat xataa ta'khuda biyadi zawjiha uma taquul wallahi laa aduuqu gamdan xataa tardaa nebigu leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haweenkiina kuwa ahlu jannii waxa weeyaan alwaduud waata ninkeeda jecel gabadha ku sifowda jacaylka kan ahlu jannaha haweenka muslimaadka ee dunida jooga ee janno gelaya sifadii loogu horraysiiyey waxaa ka mid ah inay noqoto maxay alwaduud alwaluud alca'uud tu jecel ninkeeda oo wax dhalaysa oo ca'uuda yani caa'ida bilkhayri wanafci ilaa zawjiha khayr iyo wanaaguu ninkeeda kula noqonaysa ta haddii ay wax dhinto ama iyada la dhibo intay ninkeeda gacanta qabato tidhaahdaa wallaahi inaanan waxba dhadhaminayn inaad raalli noqoto mooyaane haddii xataa iyada la dhibo buu nebigu leeyahy ama se iyadoo ay wax dhibto mar kastaba u taagan inay ninkeeda raalli geliso walidaalik ayaa lorad wiil gabadhan la yidhahdo maraykanka ee le buuggan ay u bixiyeen tarjamadiisa azawja almustaslima waxay tilmaamaysaa way gabadh guursatay dabeetana muddo markay joogeen bay ninkeedii isdileen waa iska kala tageen waxay leedahay nooc min feminist gruubyada iyo baabkan bay kusoo kortay inay ninka iska dhiciso iska celiso waa kaasi markii dambaan waxaan fakeray bay leedoo raadiyey
maxaan anigu ninkaygii u waayay reerahan jaararkay dadkanina wali xaasaskan isu qabaan dabeetana questionnaire bay qaadato interview bay qaaday interviewgeedii waxa uga soo baxay reer kastoo dhisani inuu yahay reer isu jajaban oo haweentu ay tahay mid ninkeeda jecel oo u jajaban oo waxba ku qabsanin walidaalika baa waxay qortay book ay dhaadaan tabcadii koowaad ba 100 kun oo xabaa la qaatay ay u bixisay المرأة المستسلمة استسلمي لزوجك بي بوغا فكرتي سو دموينتا نينكو اللباح بي لهدي hadii aad isku soo taagtana wuu ku cuni hadaadan u jajabnaatana afkiisaad kala bixi bay leedahay waxa ku jira sida daraadeed jajabni isdhiib bay leedahay wax kasta waa lagu siinayaa hadaad adigu isdhiibto wax kasta waa lagu siinayaa idan qofka muslimka ama reerka muslimka ah waa reer kalgacalkaasi uu dhaxeeyo waxa laga yaabaa inaan waxoogaa tilmaamay caruubnimadii iyo waduudnimadii bal dhanka kale aan tilmaamo waliba marka aan tilmaamay waxa laga yaabaa kutubtan baababkan ka warantay dadka kala qoraan in afkaar khaliya un la qoro aan tusaalayaal wadan yani cid ma jiro standard oo marka afkaarta la sharxo dabeetana standard lagu qiimeeyo male misaal ma jiro tusaale ma jiro لكن waxa laga yaabaa in علماء السلوك او علماء النفس او sociology oo waxay la mid ah wax la qoro un afkaar la tilmaamayo guriga ku dhisnaan kara kan tan aan ka daayay qaybta ninkaba hadaan taa dumarkii ahlu janna u soo qaatay tan nabi maxamed soo qabano salawaatu illaahi wa salaamu alayhi iyo dhaqankii ka muuqday waxa aan rabaa maadaama aan idhi xubbiga iyo kalgacalka ninkiyo gabadha u dhaxeeya maalmaha hore la isjeceliyo la iskursado qura ma habeen leen waa wax la beeri karo oo joogta noqon kara oo gurigu kalgacalkaasi uu ku noolaan karo ilaahay inta Allah u qoro laakiin beeristani waxay u baahan tahay labada qofba inay wada beeraan waxay u baahan tahay haweenaydu inay beerto oo ay ku beerto wixii sharcigu u baneeyay waxay kale u baahanay inaynu aragno ninka iyo jaanibka cawaatiftiisa tan uu ka tilmaamayo nabiga salawaatu ullaahi wa salaamu alayhi axaadiista ka soo aroortay tirada badan leh nabigu salawaatu ullaahi wa salaamu alayhi sifaadka nusuusta kaga soo arooray waa sifaad aad u cajab badan وصفات دن تواضعيسا موجينيا isagoo nabiga oo rasuul ah oo ilaahay ummadaba ku ka doortay oo aadam laga soo bilaabay ilaa iyo dunida qofka ugu dambeeya beersankii ugu koreeyay ugu وصفات دن تواضعيسا موجينيا isagoo nabiga oo rasuul ah oo ilaahay ummadaba ku ka doortay oo aadam laga soo bilaabay ilaa iyo dunida qofka ugu dambeeya beersankii ugu koreeyay ugu sharaf badnaay ilaahay ugu jeclaay xagga alla u xigay yani waxaan oran karnaa waa aqla insaan koonka lagu dul arko laakiin guriga dhaqanka iyo qaabku u dhaqmaya jacaylkan uu beerayay nabiga caynku ahaa salawaatu ullaahi wa salaamu alayhi waa kala nooc inaad ka warrabto dabadda marka uu ninku joogo ama gabadhu markay joogto bulshada siday ula dhaqmayaan waa si gaar ah gabadhu dabadda markay joogto xishood iyo hadal fiican iyo dhowrsanaan ayaa laga rabaa iyo xijaabkeeda iyo waxeeda seeto ninku dabadda markuu joogo waa nin wax maamulaya odaya waayeela wax garada aqoonyahana wax kastaba بل صالحين يا أولياء نبي رسول الله لكن قرية مركو تشوغو نبيكو يا رسولكو يا دادك نسيو دقميين إذن حياة البيت ويكاقا دي سنتي دبدا حياة بدن وطالة سدردت با عائشة وحي لا ضحي نبي صلوات الله والسلام عليه أيا انت ويل وحكو عب كنت أشرب فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في انت ويل وحكو عب النبي أيانو ديبا بيلادي دبتنا مركانو ديبا وحو اكتا النبي هلكي أنوان أفكساري هلكي درير كيدو كيالو كدب عبا النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني وقوري الرير قوة النول سادر أدد وحيلادي ويل كيان وحكو عبا مركان النبي وديبو
halkii aan afka ka saaray weelka ayuu nabiguna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi afka ka saaray wa atacaraqu alcaraq fayadcafahu calaa mawdici fay waxay leedahay caraqu waa lafta hilibka weliba marka inta badan laga dhameeyo wax yaroon kusii hadhaneen laf baan feentahay oo halka aan ka goostay oo intaan feentaan u dhiibaa halkii aan ka goosto isna kasii feentaa bay leedahay nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni caaisha dhaqankan waxay u soo guurinaysaa inay muslimiinta barto nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh siduu u dhaqmayay waxay tilmaamaysaa guriga siduu uga dhaqmay inay ahayd weelkaa haweentiisii wax ku cabtay halkay afka ka saartay inuu afka ka saarayay waxay tilmaamaysaa iyadoo xayd leh inuu dhabteeda ku tiirsanayo oo ku jiifsanayay xadiidkii saxiixu muslim ku yaala kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yatakau fii xijri wa ana xayd nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dhabtaydu ku jiibsan jiray bay leedahay anigoo xayd leh waxay tilmaamaysaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh idaa kaana bileyli saara macah xadiidkii bukhaari habeenkii biknik baan u wada bixi jirnay bay leedahay nebigu waa israaci jirnay litanazuh waa nebi iyo rasuul weliba goormo jooga dhowr iyo konton jira odhan anugu oday baan ahay oo dee dhallinyaradaa raacraacda islaamaha anugu ma dabagala maaha waa nebi rasuul ah oo dhowr iyo konton jira calayhi salaatu wasalaam oo la socda haweenkiisa tii u da'yarayd gabadh dhowr iyo 10 jira la socda waa madiina caaisha dhowr iyo 10 jira iyo nabi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo dhowr iyo 50 jira ayaa waxay leedahay biknik baan u wada bixi jirnay bale waxaad ka garan kartaa nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ma qarsanaynin xataa kalgacalka innaga waxaa laga yaabaa ninku nin soomaaliyeed bal kudha gabadhaada ma jeceshay yani hayru macquul waxaasi wax af la soo mariyo way ka weyn tahay nabi maxamedna inta saxaabada u yimaadeen bay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo dadka ayaad u jeceshay dee caasho buu yidhi nebigu tasawur in nabi maxamed su-aala la weydiiyo dad bayaad u jeceshay oo idhaahda caasha markaasay idhahdeen raggaanu u jeednaa markaasuu yidhi aabaheed abubakar baanu jeclahay yani isagoo nebiya oo rasuulah ayuu waxay culimmadu leeyihin xata almusaaraxa bikalimati alxub maaha iyada inuu musaaraxeeyo qura inuu iyada ku yidhaahdo nin soomaaliyeed cid kale daaya haweentiisa lagama yaabo inuu weligii waan ku jeclay ku yidhi yani wax laga xishoodo aan af ka soo bixi karin ama ku weyn weliba soomaali yani waa mushkilad bay ku tahay ba kaanama uu ninnimadiiba waayey ama uu meel hoose ku dhacay oo aan dib looga soo qaadi karaynin yani waxaa iskaga keen qaldamayd mushkiladii waxa weeyaan alxayaa aljamiil wixii sheegayey xishoodka fiican iyo wixii shareecadu banaysay dhaqanka ahaaba isku qaldamay wixii shareecadu banaysay iyo dhaqankii baynu isku qaladnay ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه هو انتيسا وتنزه الراعي بل يعني وحن ودم وحن تلمامية وأفعال انتهى بدني عواطف طاي وحكى بدشو وأفعال موقال كده ويريه كوب قال كي كعبتين تقاضنا كعبت موقال هان ما هي سمين السبال غير انك السبال لكن واحد ندي واحد كان وحو باهي ان لا بيرو oo dhaqamo yaryar oo tirsan oo adiga agtaada aan wax buuran ka ahayn ayaa qofka psychologically haday degaan noloshiisa wax badan ka bedela idan waxa la rabaa waxa weeyaan in gabadhu ay u muuqato dareensiiso ninkeeda inay jeceshay aksiga waxa kaloo la rabaa ninku inuu muujiyo haweentan kalgacal iyo wanaag inay ku wada joogaan oo jecel yahay maaha aniga iyo tii gurigayga joogtay maraanu israacnay ama aniga iyo yani xataa inuu yidhaahdo reerkaygii ayuu afka kale warwareegaya marka aniga iyo tii guriga joogtay buu leeyahay asalku laakiin waxa weeyaan nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi intuu guriga soo galo ayuu shaqada guriga wax ka qabanayay oo uu la qabanayay haweentiisa tan bal si uu cawaatifteeda u ilaaliyo haweentiisu jeclaa asxaabteeday jeclayd ayuu nabigu hadiyada u diray u fiirso haweentiisu jeclaa saaxiibadeedii ay la saaxiibada ahayd ayuu nabigu hadiyad u diray hadiyadan wuxuu ku sii raali gelinaya maxay haweentiisii u jeclaa bale iyadoo dhimatay ayuu dirayay
عائشة واتي حديث صحيحة كنت الماميسي إن صحيح مسلم كيالي مركا نيف لقلب النبي وحيد هذا خديجة أصحابتي دي إن هيلبك وحقدر قطع عائشة لا يدولي قبرتكم هنا سن إن هوين تارد ما تويان نسيسو قارن سيدا نقول هنا سيبه لا سيدو نبي شعيل كده وموجسني يعني وقرصني إنه شعيل هي أيو موجسني بل أصحابتي دي يدك أي كحرني إنه شعيل هي نبي صلوات الله وسلامه عليه وحو رقم كيس إنه تصينيا كلمة في عني وحاي ترته كلمة في عني كلمة في عني نبي هوينتي سو أماني أمانته وح فترة بين آدم كسكتش عش أو وقفكو يربون بون سما دي وحلا يرى شيك شيكو هوين هدي سو النبي كويري إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام عاشا فضل جيده وحكوية هيبو النبي كويري صلوات الله وسلامه عليه المركة الله يقضي مركة كله سيدا ثريدكو كي ثريدكو كمس مرق يهلي بلقو جوية وقت جودي يعني عنده وقفي عن ملا مدينية غير كده تالي ومركة طبقات ده ونقص الرئين كان وحيو في عنيده يعونسين ثريدكو قالكو كتشوغ الضمر أيو كتشوغ وحماشة كم مغضاوحو يهي إلى حد لغضتنا أمانتي يا مشاعر تدك مركز اسوي درسنيا حتى هوان يديسه أمانت الشعور كوان كتشعل يا باب كاسي كصاب سيسن وركيدو حتى بين معها وبما شيء يا ورنميس ولذلك بحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه صحيح أبي داود ككسوغان وحنبي دورك الشيء ويريد بين معها وحكمده والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها لابد شيء كذا يسوي ونكسر يعني مشاعر تاسي المبالغة في حديث المشاعر بين هذان كذبك كمشرته بينتك كمشرته وحكم موقته نبي صلوات الله وسلامه عليه إلى حد أنت وحتى هوايات كذا وأقرأ أفكوا حلقة يا نوع من الهواية واحد شعلي يونس كشرته عاشوا إنان يرو دورية تمشيرو دلين يراه وحيل هيد فهلا يريرو يكو عيارته هبلا يريري فردي وحبي سميستي ay ku ciyaarto iyada dhalinyaro kale oo yimaada dabeetana markay dhalinyarada kale ay hablaha kale la jooga markuu nabigu soo galaa la is ururiya meel baa la isku qariya Aisha markay u tagtay nabigu bahalada yar intuu qaadabo hoosta uga dhiibayay say halkooda ugu ciyaaraan yani hatta inuu ogolaado hobigeedan yar iyo ciyaartan yar ay guriga iska ciyaarayso inay wadwadato oo ay meesheeda ku ciyaarto حلنا النبي صلوات الله وسلامه عليه وحكم موقته هذه الكلمات مركا إنه تلمامينه هذا الكنأة إنه أمان أيه أما تشعيل كيس أو موجسان أيه أما هوايات كده وحقوق قلان أيه أما وقرقة وشقوين كقار كود قرقار أيه أما ويل كالكي وحكا قعبتي وحكا قعب أيه كل هذه ولغة المشاعر ولغة درين كترجمة يعني قفك بني آدم كا صعد كيس هي هذا الكيس هي موقال كيس هي الديمديسو واللغة قفك كلنا وفهمه ولذلك بقى أحد العلماء بأناركي الدكتورة بكو دياريين لغة التواصل في القرآن وحيابها كلام لقى مورمي لكن وحكى له يعني بني آدمكو هذا القرآن ما هو حكو واضح حليله ولذلك مركا قريقة دبدا لقى تشوغو وحالا ممنوعي هوانتو إن السحش ماله وصعو طبعا لأمري وحالا لي وحي سيتشبسا قفك كلا إيشي سيسوتشي داني عقار دولك لغو قراعي وحاصر دنبالا ممنوع ويوا اللغة سيتشبين تاني واللغة كبهان دادير اللي قاداني يوا اللغة كبتان ديري مرة ويسنقدا دو كبنينو سنقدا سيولي قام يادركت حاكبات دوبرك سنقدا لغو يالي وهنا وهقبض كله هل كان مرة يسويك من كبدير دو لا أركي ما يشدوا لي وفلسفة يعني محير هذا ستايل انجينيرز كو حنا يدكيه ويان قولada fashion ka samaysa kabtan dumarku inay maxaa loo dheereeyay wal tamayul
kabdhulka ku naban haddii la siiyo dee iska digdiglaynaysa caadi u soconaysaa laakiin inay ruxruxantaa la rabaa in jidhkeedu dhaqdhaqaaqo tamaayul uu dhaco dabeetana kabdheeroo walawala waxaasoo dhammi dabadda waa ku mamnuuc waayo waa luqati tawaasul bay ka matay waa afka lagu wada xidhiidho waa luqa ka mid a luqaadka bini aadamku uu fahmi karo ee uu ku wada xidhiidhi karo haadihi luqa beytka way fasaxanta waa ku mamnuuc waayo waa luqati tawaasul bay ka matay waa afka lagu wada xidhiidho waa luqa ka mid a luqaadka bini aadamku uu fahmi karo ee uu ku wada xidhiidhi karo haadihi luqa beytka way fasaxanta idan ninka iyo gabadhu dayma ay isdaymoodeen bay wax isku fahamsiin karaan hadal ay tidhi uu ku qoslay ama uu ku farxay ama ay raallinimo uu ka muujiyey mare ay xidhatay ama uu xidhay cadar ay isticmaashay eray ay ku tidhi qaab ay gurigeeda u dhex socotay all this kinds waa luqati tawaasul waa luqada aynu leenahay waxay beeri kartaa yacni mashaacirtu hadal qura laguma muujiyo xataa haddaan waan ku jeclay afka ka soo bixin waa inay ka soo baxdaa dhaqan muujinaya inaad jeceshahay waa inu luqatu tawaasul ay jirtaa waxyaabaha kan tilmaamaya sida daraaddeed luqadan markaan ka warramayo waxaan idhi waxaan jeclay inuun dadkii guri lahaa ay yihiin dadka ama shariidkan dhegaysanaya ama daawanaya ama jooga waayo luqada tani waa luqo aan la ogolayn khaarij albeyt inay u baxdo waayo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkii saxiixu muslim ku yaalay wuxuu tilmaamay ina min ashari nnaasi cinda allahi manzila yowma alqiyaama maalinta qiyaame dadka ugu shar badan waxaa ka mida buu nebigu yidhi nin sigiyo gabadhiisa warkii dhex maray ee baabkaa ku saabsisnaa ama gabadh iyadiiyo ninkeedii warkii dhex maray ee baabkaa ku saabsanaa dabadda kaga sheekaysay idan waa luqo guriga ku kooban waa luqo qafilan oo aan la ogolayn inay albaabkan ka baxdo se daraaddeed markaan luqadan tilmaamayno fi suuq hadday tagto waa fusuuq iyo fujuur fankan aynu tilmaamayno waxay leenahay waa fujuur waayo waa luqadii beytka oo la geeyey suuqa la geeyey weeyaan waa luqadii beytka oo suuqa la geeyey sidaa awgeed ayuu nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu ku tilmaamayaa warkaas baabkan ku saabsan ee nin iyo gabadhiisa ama xaaskiisii baan u jeedaa nin iyo haweentii uu qabay dhex maray inaanay marnaba bannaanayn in dabadda lagaga warramo oo lagaga sheekeeyo haddii dabadda ay noqoto wax lagaga sheekaynayo inay yihiin min ashari annaasi cinda allahi mansilatan yowma alqiyaama dadba kuwa ugu shar badan ilaahay agtiisa maalinta qiyaama waa luqo markaaynu leenahay waxay u baahantahy in ay ku koobnaato beytka luqada tan cutuurta iyo waxaan la ismamnuuriya caaisha waxay leedahay xadiidkii saxiixu muslim ku yaalay waxaad moodaa inaa nebi moxamed arkayo oo fii mafraqi ra'si tiibkii iyo wixii uu ismariyey ay kaga yaaliin yani suu nebigu isu qurxin jiray ama uu u jeclaa gurigiisa iyo meelihiisan markuu joogo in cutuurtiisa iyo wixiisa kani inay ka carfaan inuu gurigiisu waxaan leenahay luqadatan iyo warkan aan tilmaamayo o dhani waa war ama waa dhaqan iyo afcaal sheegaya in kalgacaluu jiro nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamaya innaka lan tunfiqa nafaqatan ilaa ujirta calayha xata luqma tarfacuhaa ilaa fiyi imra'atik xadiidkii bukhaari wuxuu nebigu yidhi wax kastoo aad baxsato yacni in laga abaalmariyo xataa raashinka intaad qaadda aad haweentaada afka ka geliso xadiisku muxuu tilmaamayaa ninka muslimkii raashinka intuu qaado inuu maxay haweentiisa inuu afka u geliyaa inay tahay wax laguga ajar siinayo luqadan aan sheegaya iyo waxaanan ka warramaya iyo kalgacalkan aan dhisaya waa kalgacal aan janno ku doonayno dheeldheel qudha maaha laba shayba wuu wadayey gurigan dhismihiisa wuu ilaalinayaa dadkan wuu isu soo dhowaynaya dad isu laab furan oo isu qalbi fayo oo isu dhadhow buu ka dhigayaa waa mar labaadee waa waxaan leenahay ilaahay baa loogu dhowaanaya subxaana wa tacaala oo wax janno lagu helayo sida daraaddeed ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh
isagoo Caaisha la fadhido ayaa waxa soo gashay Zawda haweentii ugu weynayd haweenku qabay nabigu iyo tii ugu yarayd weeyaan walaal xaasoo nabigu qabo midna waa tii ugu weynayd midna waa tii ugu yarayd labadiiba halkan bay fadhiisteen labadiisa adin buu midba mid saaray adinna Caasho dusha ka saaray adinna Sawda buu dusha ka saaray Caasha intay kacday bay waxoogaa raashina soo samaysay oo ay Sawda u keentay Sawda tiricun maayo way ku celcelisay cun ma waad cunaysaa cuni maayo bay haddaad cuni weydo wajigaan kaa marinayaa bay tiri nabiguna uu dhex fadhiyaa Sawda tiricun maayo Caasha intay raashinkii bar qaaday ayay Sawda wajiga ka marisay nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi labada adin buu markii hore ku hayay Sawdina say uga goosatay buu nabigu cagaa ka soo qaaday labadiisa adin buu ka laabtay Sawdina intay qaaday wajiga ka marsay iyadana يعني وقولي النبي قال له عيارة سودنا عايشة عنا وجهك كسرتي عايشة أنا محي سودا عنا وجهك كسرتي وحنا وجه ذا وحي تلمام ين قضايات كني إن لبيره أما سلك وبعيه كالقعل كود حية ننك إياه وينك يسقبه صدر عدد النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى سفر كمركو تجيه haweenkiisa intuu qori tuurabuu tii qori tuurkeedu soo baxu ka haysan jiray inay safarkana xataa ay la socdaan luqadkani waxa ay sheegayaan been leenay waxa laga yaabaa ninka Soomaaliyeed inuu caruuro u arko laakiin ninku gurigiisa markuu joogo waa ilmo weyn waa caruur halkan ku caruur ahaataa loogu talagalay sida daraadeed uu nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayhi Aisha intay dabada u soo yara baxeen buu yiri in kan baratanne وعاشوا هنا يرى ولا برتمي مركزي كده رئيس مدة اللي تشوقي ما عندنا بوا درس في الرجال أبو عاشا ما أنت نوا برتمي هنا كين ويرى مرصت ما يوا برتمي هنا أبو هنا دغاش ولا برتمي ما كان عايش ويرى عصلات وهنا تيري فضوضيد ما هسيدي هو ويسكب بده شيء دبتنا وكده النبي أنتوا كده يبوا اللي بيجي تلك بتلك تاتي وطرب النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني متكين با أركي كاري لها سجيه وين يديسو انت دبدا ويرب حنيني برتمان يعني waxa laga yaabaa inay suurada ninka Soomaaliga agtiisa taala inay tahay ninima la'aan ama waxaan yani dhaqan nin weyn dhaqmo waa dhaqan nabi anigu waxaan ka warramay waxaan idin misaalka kama bixinayo cid kale tusaale kama bixinayo وتصالح النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه oo bashariyada cidii loo soo diray inuu hago ilaahay baa wuxuu abuuray kuugu jeclaa subhanahu wa ta'ala makhluuqaadka basharka loo yaqaano sida daraadeed ayuu nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayhi dhaqamaha ka muuqanaya muujinaya in guriga kani uu kalgacalkaasi ku dhisnaado sida awgeed buu عايشة مالك وتري الله رسولك سيهون كلام ده كنية بيلينا أنا كنية عبد الله بو ويار إمام أحمد حديث كيسو كتل المامي بل أمر كويار يو ترخيمين شري يا عايش ما قعوا برد لجويه ما قعوا إن الله تورا إن يعني ما قعي هو أنتوا عن لوضع دمين نصير أنت الله شاقو أنت كلنا الله سكتكو كل ذلك وحي شيء جيسه لغة هي قاب كان لو رقم يا إنه يقاب مشاعر الله إلى عاشوا هنا يرى يا حبشي عياري سوى حتري مرة بتابع النبي يقول قلنا عياري سنة دعوته ها بيكتري ترى النبي يقول سوتا يقول لنا عيسى حاجة دم يتسكت سوتا تي أيان أما كذا ما هو صار يبي له هذا وما تقول ما كده شيء مركو إلى هذا ما يبان إلى هذا بيت أنا قول ربيت تكونوا قاعدة بي له هل كأن النبي كتشوفه عيارنا ما ربينا واحد ربي بي له سو نبي يقول شبابية هاي أنا اكتسا قيمها وقولها هاي إن دتك كلا وقادان أما دمر كلاين وقادان وحي تلمامس قضايات كني روح المرح إن أي كتشرتو يعني كتشرتو إنه النبي محمد لا خياركم لنسائه حديث كتير مدى الباني صحيح كنت المامي ويدن كفي عنه
waa kuwa dumarkooda ugu fiican. baabkan waxaad moodaa inaan tilmaamay mithaalkii koowaad. waxaan idhi muftaax asacaada zawjiya waa shirkad reerku nin iyo gabadh isku darsadeen. shirkadda ra'sumaalka hantida rasmiga ay haystaan ay ku tijaaraynayaan baynu idhaha waa alxub, waa halku ka bilaabmo. muftaaxa kani mafaatiixdu waa ilka badan bay leedahay. waxay tilmaamaan culammadii oo ka mid ah ataqaadi, in isxisaabinta badani taziidu lmasaafaata bucda, in la isu dulqaato waxyaabo badan isha laga rogo si kalgacalku uu u beernaado. waxaa ka mida bay yidhaahdeen altawaafuq bayna altawaquci waalwaaqic. kullu hada waxay u baahnaayeen amhila min alkitaabi wasunna inaynu tilmaamno, laakiin wakhtigu wuu iska dhammaanaya. waxaan ku soo koobayaa uun kullu daalika nusuusta qur-aan ee tirada badan le ay sheegayso ee lagu yidhi dadka kale kula dhaqan, waxa awla u ah oo ugu horeeya inaad kula dhaqanto maxay? taa nolosha wadaagtaan. haweenna waxaan ku soo koobaya iyada nebi moxamed wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh, gabadh baa u timi dabeetana danay lahayd baa ay ka waraysatay. markay dhammaysatay wuxuu ku yidhi nin ma leeday? haa bay tiri. saa isku tihiin buu yidhi, arrinkiisa saa tahay. waxaanu taag waaye mooyaane wuxuu u baahanya uma meel yeela bay leedahay. yani wax kastayna raalligelayaa baan isku dayaa. wuxuu nebigu yidhi ku dadaal, isagaa janniya naartaadiiya buu nebigu ku yidhi. idan haweenayda ninka waxa caanka ah atakabur bay dhahdaan iyo alkibriyaa. markaa wuxuu isleeyahay armaad haddaad waxan yarra samayso lagu yeesayaad hoos u soo dhacday. waa cuqdatu naqs ragga ku jirta bay dhahdaan. cagsiga dumarka bay dhahaan waxaa ka asalaa sulukiyaadka lagu yaqaano alcinaad. madax adaygoo ninkan haddaad dabasani badan uu kaa arko wuu ku gumaysanayaaye dee aad wax iska dhicisid. laakiin guriga dhabtahi waa gurigaan labadaa midna oolin. ninkuna markuu guriga joogo isla weynihii oo dhan uu ilaabay. haweentuna markay gurigeeda joogto daaca dhammaanteed ay la timi. waayo haweenta waxaa laga rabay xadkuu nebi maxamed tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. mucaadi ibnu jabal markuu shaam iyo meelaan ka yimi uu arkay qolo boobabkoodii wadaadadoodii u sujuudaysay, uu nebiga yidhi adnaanu kuu sujuudno oo isku dayey. wuxuu nebigu ku yidhi salawaatu waxaanaad samaynaysaa waa maxoo? qisadii buu u sheegay. nebigu wuxuu ku yidhi haddaan bashar uun fari lahaa inuu bashar u sujuudo, bini aadam uun haddaan odhan lahaa bini aadam, sujuuddu waa maxay? sujuuddu waa meesha muujisa inaad ogoshahay ilaahay inaad addoonkiisii tahay. waa waxa muujiya jidhkaaga halka ugu qaalisan ee ugu sarraysay aad haysataa waa wejigaaga aad soo nadnadiifisay ka dhalaalisay. markaad halkaad cagaha ku haysay saarta macnaheedu waa maxay? waa ilaah waa isu kaa dhiibay, waxaan ogolay inaan addoonkaagii ahay. waa calaama lilistislaam. waxaa la yidhi haddii bashar uun la odhan lahaa bashar adna madaxa dhulka u dhig, haweenkaa la odhan lahaa ragiina u sujuuda. idan haweenayduna cinaadka ha iska dayso, ninkuna takaburka ha iska daayin. guriguna kalgacalkii maalintii arooska laga ololo ahaa lagu dhisayey, maalinta xabaasha la qabanayo inuu sidii u jiraabaa loo baahanyay. ma gaboobe ha gaboojinina. wallahu aclam billahi tawfiiq. insha allah